oo shacabka Soomaaliyeed badda ku tuuray ay ciidanka booliska dawladda federaalka Soomaaliya ay soo qabteen meeshaasna waxa ka cad cadowga inuu dabar go'ay burburay jabay shacabka Soomaaliyeed ciidanka laamaha amniga dawladda federaalka gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo shacabka inay iska bahaysteen cadowgaas kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaano inay iska bahaysteen way caddahay waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed gobolka Banaadir ku nool say ugu hiiliyeen amniga cadowga ka hiiliyeen burcadiineedka ka hiiliyeen nabad diidka ka hiiliyeen u hiiliyeen nabadda iyo qarannimada Soomaaliya u hiiliyeen oo madcilana codka wasaaradda amniga ku hadlaayo shacabka gobolka Banaadir degan in badan waxaan ku celcelinaa oo madcilna kooxdaas ma aha koox diin asal iyo raad ku leh koox qarannimada Soomaaliyeed iyo amniga iyo dawladnimadeena diidan fikir takfiiri ah oo xaq jirnimo ah soo wadanka ku soo guuriyay laakiin waxa ugu mahadcelinaa shacabka iyo ciidanka laamaha amniga gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybta gobolka Banaadir anoo codka wasaaradda ku hadlaayo anoo codka wasiir ku hadlaayo oo mahadcelinaa cadowga say u soo qabteen say u soo afjareen cadowga ee maanta markii la baaray bambadii uu ku tuuray shacabka Soomaaliyeed dhaxdeeda isgowska bakaaraha ay ku tuuray way caddahay wax muuqdo waaye gacantiisa meel la saaray qalab oo maartay elektronic ah oo horumar ah oo dawladda ay suubisay amniga ay suubiyeen tiya muuqato ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri ya alladina aamanu in ja'akum fasiqun binabiyyin fatabayyanu qof cadeyn haynin meesha soo saarno ilaahay ka baqayna ma jirto ninkan gacantiisa waxa laga helay markii laga helay elektronic la saaray baarista la baaray bambadii uu tuuray ayaa laga helay gacanta garabkiisana waxa laga helay oo suunkii surtayna bambadii baa laga helay oo surneed astaanta waa inoo muuqataa qof ama sabideena ma jirto